معو حسين waxaa tahay gudoomiyaha kooxda Banaadir waxa magaalada ka tirsan maad ka asaastay dhalinyaro iyo caruur aad u daayar oo runtii aad barto maxay ahayd kubadda noocyadeeda kala duwan fikradan goormee kugu dhalatay Macoo bismillaahir rahmaanir rahiim kulay kubadda waxa waaye kubadda yaranteeda soo ciyaari jiray waxaan jeclaa inaan ciyaaro waa isku dayay ilaa heer qaran ka gaaray xilligan ka duqoobay aan ka fariistay ayaan waxaan aasaasay inaan caruur yar inaan sameeyo waata marka caruurtan waxa ka bilowday magaalada ka tirsan Harlem caruurtan daadooda imisa u dhaxaysa caruurtan daadooda waxa u dhaxaysa 6 sano ilaa 12 waa gartay marka caruurtan ma adiga ayay shakhsiyan kugu imaadeen mas'uuliyiintooda ayaa ku yimid mas adiga doonad caruurta waalidiintooda ayaa keenaan meesha oo wali waalidiintooda ay joogaan 4 saac maalin alla maalintay ay ciyaar jirto maalintay maash jirto waalidiintooda way wataan way keensadaan waana joogaan ilaa haddana way joogaan maanta tirada marka hore ku asaastay ilaa iminka horumar miyaa sameeynaysan mise waxa dareemaysaa in maxay ahayd wali sidaadii aata tirada aan ku bilaabo marka hore waxay ahaayeen ilaa waxay ahaayeen 30 qofood ay ahaayeen hadda ilaa waxay gaarayaan 100 ilaa 120 cunug gaarayaan waa gartay isla magaalada ka tirsan isla magaalada ka tirsan waa tahay markii yaa kula shaqeeyay waxay la shaqeeyo oo ma hadda iska leh waalidka ay la shaqeeyo qaasatan Xuseen Nuur Buushe oo gacan yareeyga ah waxa kale oo ila shaqeeyo magaciisa Abuukar Karish waxa ila shaqeeyo waalidiin badan Maxamed Cabdinaasir wiilkiisa Cabdinaasir oo kale waxa ila shaqeeyo kale Jackson waxa kale oo ila shaqeeyo ciyaartoy badan Liban Malay aad marka ciyaartoydan ama dhalinyaradan marka inta tababarayso ma maalin kasta ay tababar ku qaataan qaabkee ayaad u kala tababartaa way kala da'waaweyn yihiin maxaa u sameeysaa kulay nin da'diisu la ciyaaraa 6 sano ilaa 7 sano way isla dheelaan 8 sano ilaa 9 sano way isla dheelaan 10 sano ilaa 12 sano way isla dheelaan 14 sano ilaa 16 way isla dheelaan waata Macoo maxaa ku doorsanaysaa ama maxaa ku iibsanaysaa in waqtiga inta ugu badan caruurtan aad geliso maxaa ku ilaawaysaa waxaan ku ilaaway caruurta badan waxa iiga fiican aan maartay aan qiimo aan sharaf oo ku yeelana 2 cunug 3 cunug iiga soo baxday ayaan ku ilaawi karaa oo micnaha oo heerar kala heer qaran ay ka gaaraan ilaa iminka dad indhahooda markaad aragtay aad isleedahay alla ilahay caruurtan way ku haboon yihiin xilligaas ma jirtaa waa jirta caruur badan oo fiican oo maanta hadii la gacanta saan loogu haayo shalay marka bilaaway caruur waxa jirta dhulka joogan hadda maanta la dhihi karo maaragtay quality-gooda aad 100% ku fiican yahay waana iskugu jiraan caruur yar oo wili ku fiican orodka ku fiican jirto caruur basket ku fiican jirto caruur football ku fiican jirto kulay way isku jiraan markay gaaraan ilaa 15 16 gaaraan ayaa rabaa inay orodka markaas si fiican u la qabsadaan laakiin hadda waxaan ku wadaa trainingkii kubadda cagta ku wadaa hadda kubadda cagta kaliya kubadda cagta ku wadaa hadda waa gartay marka ma isleedahay marka orodka kale la yiraahdo meel ay ku ordi karaan ma geysaa waageeya badana waxaan ka dhaadhiciyaa iskuulka inay maaragtay markii la sameeyay iskuulkooda subaxdii ay sameeyay inaa iraahdo orodka dadka ugu fiican inaan naqatin aan kula dardaarma waana natiijo fiican way kan markaan weydiin waxay yiraahdaan koowaad iyo labaad iyo saddexaad aan soo galnay yiraan dhamaantood waata Macoo waxaad ahayd ciyaartoy hore oo Soomaaliyeed oo runtii si weyn looga yaqaan gudaha wadanka Soomaaliya dhalinyaradan ama caruurtan yar ah tababarto meeyga kaligood ayaa ciyaaro oo dhaxdooda ayaa is ciyaarsiisaa mise waxa jiro is dhaxgal ah sameeyso oo wadka kale ay la ciyaaraan wadankan u dhashay ama iswidishka aadan ama ajaanib kala aadeen waqti hore sanad ka hor oo ahay 2011 oo kale waxay ahaayeen inay kaligood ciyaar jireen markaas wax aqoonsi ma lahayn la waqtiga hadda la joogo 2 sano waxay ciyaaraan wadanka seerigooda ka ciyaaraan ilaa waxa ciyaaro ilaa 8 jir ilaa 16 jir waxay ciyaaraan 3 group ayaa hadda sanadkan ciyaarto بريتو هدو اللي يراهدنا وح عيارة أفريقيا تمنجر كعيارة بريت أحدنا وح عيارة تمنجر كعيارة سادرتين مركب حلا عيارة عرور كلا أو سولش أو يقلا مذا
caruur kale ayaga lama sida koox kale waa sida nacam waxaa loo cayaaraa waqtigeena bersamaadkeena sida madbacada oo kale joonyo kale ayaa saas ayaa loo cayaaraa marka horyaalka wadanka la cayaaraa okay inta ubadkan aad haysid natiijo ma ka soo hooyeen gobolkan aynu joogno ee Soomaaliland waa ka soo aad ugu soo hooyeen waxay cayaareen ciyaarta la yiraahdo in hool ciyaarta afarta ciyaareen hoolka qawoway cayaareen waxay ka soo qaadeen maaragtay in 8 gobol oo magaaladan ka tirsan ay ka soo qaadeen koobka waa gartay koobkii ka soo qaateen koobkii ka soo qaadeen waa taa maxay kala sameeyeen marka horumar ah horumarkii sanadkii hore sanadkan haddana waa wadnaa haddana waxaa ugu horeyna hadda in 10 jirka dhalinyarada 10 jirka ayaa ugu horeyna hadda waa gartay gormay ciyaarayaan iyaguna ayagana ciyaaraan sabti axad ciyaarayaan haddii la yiraahdo waa taa macow hawshan aad wado caruurtan la tababarayo barnaamijyada la tababarayo bulshada kala sidee ku aragtaa hawshan aad wado maxay ku leeyihiin markay arkaan kugu dhiirigeliyaan ama ku niyijibiyaan والله كل بني آدم كل نبى فكر وهايستا كل بني آدم وحا أو ودنك دتك أو نميت أيام مالنتا عيارنا أيام يرهدان ورميقسنا جرتين وقت ميقسنا قاعدنا أساسنتا marka iraado sanad iyo laba san hadaan iraado madaxay qabsadan oo sidaan aan natihin laba san ana konton sano iyo 40 sano oo jirno ururkeena ayaa saan la ciyaartiin saan nooga badiseen madaxay qabsadaan marka ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay in ilmaha maaragtay ay ku tarbiyaan maadaama ay wadankii ay joogin ay 4 mitir ee dhex fadhiyaan carruurtu hasoo saaran banaanka oo saar caafimaadka helayaan isboortiga caafimaadka wata macow waxaa jira ciyaartooy adiga kula mid ahay oo hadda Yurub qaybo badan oo kamid ah joogaan haddana laga yaabo inay ku daawanayaan maxaa u soo jeedinaysaa ciyaartooyda daadaada oo kale ah ciyaartooyda kale waa dad igu horeeyay shaqadan qabteen way jiraan ma hadda Allah ka gaarsiiyay sida ninkii igula dardaarmay daargacmay munishibi ciyaaraya ayuu yiri culays badan ayaa kala kulmi doonta wuu yiri kulliba laakiin culayskaas uma arkay waxa ku jiraan laba wiil aan dhalay oo hadda mid 14 jiro mid 13 jiro oo hadda lama fiican oo hadda waqtigii aan gacanta ku qabtay la hadda wax iska bedeleen marka kuma qasaarin laakiin waa iska jirtaa in waqti kasto واسكت جرى وقت كستين دليل إيو مارتي سومال واسكت تقانا نيجب واسكت جرتا لكن دقلو دقي ما يد لكن محاوسو جيدين إسا عرض يقول إن سيدانو كلا عرورة وتوبران قبل ذي جوجان مكونا ترى نسا وحندي لا نكستو عيارتي سومالي عوني جيسا عم بلابي عوني وكل درس كيسا عم بعديرو يهاي وحسو صار aad baad u mahadsantahay kaasina wuxuu ahaa macallin Macow Xuseen oo ahaa macallin kooxda Banaadir isla markaana tababara caruur aad u fara badan oo Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Katrineholm Macow Xuseen waxa uu hore uga tirsanaa ciyaaryahanadii qaranka Soomaaliyeed waxa uu ka soo mid noqday kooxdii madbacada waagii barasamaadkii Macow imika wuxuu ku nool yahay magaalada Katrineholm wadanka Sweden Katrineholm waa tuulo ay ku bohoobeen bahda isboortiga Soomaaliyeed intooda badan waxa ku nool gudoomiyaha Olimbikada Soomaaliyeed waxa ku nool ciyaaryahan la yaqaano caan ah waxa kale ku nool mas'uuliyiin ka tirsan bahweynta isboortiga Soomaaliyeed ee dalkeena Soomaaliya Macow aad iyo aad baad u mahadsantahay shukran TV-ga SNTV aad baad u mahadsantahay guud ahaan barnaamijkeena intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa dhanka farsamada ee kaamirada waxa gacan iga siiyay farsamayaqaanka daadayar Mustafa Xasraag Mustafa Khan waa Cabdiraxmaan Xudayfi oo dalatan iyo kulan dambe sidaas iyo nabad geliyo Digsada asagin